بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu soo socotay qisadii gabadha qoyska burburisay ee baabiisay ugu dambeynna dishay gabadhii guriga lahayd waxaa dhacday markii gabadha meydkeeda la geeyay CID-da baaritaan lagu sameeyay waxaa soo baxday in gabadha la sumeeyay oo sun badan lagu hubsaday oo jirkeeda dhan wada sun ahaa waxa baaritaan lagu sameeyay guriga oo dhan cidii ku nooleed cidii la joogtay cidii guriga u badneed ayaa guriga baaritaan ee lagu sameeyay waxaa dhacday gabadhii markii baaritaan guriga lagu sameeyay waxaa soo baxday in gabadhan ay joogtay guriga oo shaqaale ay ka tahay iyo inta kale caruurteeda ay yihiin waliba caruurta ay yaryar yihiin aysan keeni karin inay maamadan ama hooyadooda ay sumeeyaan inkastoo caruurta ay wax walba faraha la galaan wax walba isku daadaadiyaan laakiin shakiga ugu badan wuxuu fuulay gabadha shaqaalaha ahayd gabadhii shaqaalaha ayaa la soo qabtay waxaa la dhahay arrintan way kuga caddahay waayo sirdoonka waxay isticmaalaan wajiyo fara badan si ay gabadha u khalkhalgeliyaan oo runta ugu soo saaraan waxay dhaheen arrintan way caddahay muuqaalo fara badan ayaa la hayaa waynu kuga caddahay waxaan doonaynaa arrintan dambigan in aad afkaaga ka qiratid oo afkaaga wax walba ka soo baxaan runtii ninka naagta qabay marna isma dhihin gabadhan fikirkan xun ay qaadan doontaa ee shaydaaniga ah ee maskaxda soo gali doona marna isma dhihin laakiin sirdoonka wajiyo fara badan ay wax ku baaran ayaa jira maadaama uu ninkana guriga ka maqnaa baaritaan badan markii la sameeyay gabadhan shaqaalahan ay guriga joogtay waxay ku fikireen gabadhan inay khalkhalgeliyaan oo naxdin geliyaan iskana dhigaan dad cadeen ku haya si ay runta u ogaadaan runtii gabadhan waxay aad gabar maskax badan laakiin hanjabaad iyo cagajugleen iyo cadeeno fara badan in laga hayo iyadoo loo muujinayo kadib waxaa laga helay arrintii saxda ahayd ee dembiga ay gashay ee saxda ahaa waxay dhahday aniga waxaan ahaa gabar shaqaale ah waxaana ka soo jeeda reer sabool ah runtii in badan ayaan nolol dhibaato fara badan ku soo noolaa laakiin gurigan markaan imaaday waxaan helay nolol fiican waxaan helay naag fiican oo wanaagsan waayo guryo fara badan ayaan ka soo shaqeeyay guryahaas waxay ahaayeen naagaha guriga iska leh waxay naago kulun oo dad ku qayliya oo 90 in loo shaqeey rabo marna inaan la nasan laakiin gabadhan waxay tustay naxariis waxay tustay soo dhaweyn waxay tustay wanaag laakiin aniga waxa dabac galay gurigan nolosha wanaagsan taalo in ninkan wanaagsan in aan la wareego sida aawadeeda waqtiyo fara badan ayaan ku fikirayay inaan naagtan aan guriga kala wareego ugu dambeyn ninkeedii ayaan la saaxiibay muddo bilooyin ayaan saaxiibo ahayn kadibna waxaa dhacday in aan naagta ku fikiro inaan isdhaafiyo isma dhadhayn arrintan sirdoon ayaa soo gali doona problem ayaa soo gali doona arrinta way sii daba dheeraan doontaa marka maxaad ku samaysaa naagtan qaabkeed sunta u siisay qaabkay kugu suura gashay inaysan kaa shakin waxay dhahday in islaantan ama gabadhan aniga walaasheedoo kale iga dhigatay guriga shaqaale kama ahayn walaaloo kalean ka ahaa mar walibana wax walba aniga u sameeyo kalsooni badan ay ku qabtay ileen cunada ay cunayso qofta u soo sameynaysa aan ahaa saan ninkeeda ugula wareega dartiisa ayaan raashinkii sun ugu daray weliba waxaan siiyey xili uu ninkeeda maqan yahay suusan asiga ugu samoobin waayo aniga asiga ayaan jeclahay ayada waxaan doonaya inaan isdhaafiyo sidaas darteed ayaan u sameeyey arrintaas jaceylka aan ninkeeda u qabaan igu kalifay runtii askarta way yaabeen way la u qaadan waayeen ninkeedii ayaa loo wacay gabadhii la sameeyay arrintii ayaa loo sheegay wuu yaabay ninkan qoftan ilaa ay fikirkan heerkan leeg inuu ka gaarsiisan yahay wuu la yaabay ugu dambeyn uu qoomameeyay way xaaskiisa waxay ku dhaaftay xiriir uu gabadhan la sameeyay aniga ma dhahayo hadda qisadan waxaan soo qaatay ma dhahayo gabdhaha shaqaalaha ee guriga ka shaqeeya oo dhan way wada xun yihiin ma dhahayo laakiin dhacdadan waa dhacda dhaba ee ka dhacday magaalooyinka Soomaaliya runtii gabadha shaqaalaha waxa loo baahan yahay naagta guriga loogu shaqeynayo inay iska kontrolsho
waayo waxa laga yaabaa guriga inaysan saameyn caadi ah ku yeelato waayo rag waa iska damac badan yihiin barbalamkooda ayaa badan hadda damaca ninka qaaday dadkiis ay gabadha masaakiinta ay daacadda ay ku dhimatay loo sameeyay gabadhan shaqaalaha aana shaydaan ayaa ka tambadiyay waxay aamintay in guriga la wareegayso gabadha shaqaalaha hadeer waa saacadan ee 2022 kala joogo waa qof eedna waa la dilay waa qof eedna meetan labadooda way wada dhinteen oo dil toogasho lagu xukumay gabadhii macnaa diiniyan ayaa loo xukumay waa la dilay reerka waxay dhaheen gabadha loo dilo oo gabadha oo aabaheeda iyo walaalaheeda iyo hooyadeeda waxay isku raaceen gabadh in loo dilo ninkiina uu ku raacay wuxuu dhahay day wax dishay iyadana hala dilo gabadhii dil ayaa lagu xukumay waana la dilay ninkii oo gabadha labada gabar oo dartoodiisa ay wada dhinteen hadda waa 70 sano jira ah waana joogaa reer kale ayuu yeeshay ilmo fara badan kale ayuu dhalay laakiin meesha waxa ku khasaaray naagtii masaakiinta ahayd ee sunta la siiyay iyo naagtii shaqaalaha ee sunta siisay marka dumarku waxaan leeyahay ninkiina mar walba ka warhaya gurigiina wax ka dhacay ka warhaya si aysan dhibaato u dhicin adigina aadan dhibaato ku soo gaarin qoyskaagina qoys burbur kugu dhicin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida ay qisadan kula tahay waa inaad commentiga nala soo wanaagtaa share garaysaa haddaad nagu cusubtahay subscribe noo saartaa